halkan oo ah hotel Nasteexo ee magaalada Burco waxaa warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah murashaxiinta aan ku soo bixin natiijada hordhaca ah golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee ay dhawaan yeedhiyeen komishanka doorashooyinka qaranka waxaana ay sheegeen murashaxiintaasi inaanay ku qanacsanayn natiijada hordhaca isla markaana dib loogu noqdo tirinta codadka ka soo xaraday gobolka Togdheer waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi badan inta labalaabkeedna way naga maqayeen oo musharaxiintii la yidhi kumaydaan guulaysan tartankii doorashada shirkan jaraa'id sababtan u qabanayna waxaan ku qancin qaabkii ay wax u dhaceen natiijooyinka ay haystaan murashaxiintu iyo kuwa komishku yeedhiyay oo kala jaada waxaynu u baahannahay waxaynoo dhacday doorasho qurux badan shacbiga reer Soomaaliland way dadaaleen waxay u baahan yihiin shacabku iyo annaguba midhihii iyo maxsuulkii ka soo baxay doorashada si waadaxa oo aan madmadow ku jirin in loo arko waxa muuqday ama dhacay natiijooyinkii komishinku ay yeedhiyeen iyo natiijooyinkii murashaxiintu ay haysteen oo isdhaafay waxa dhacay sanaaduuq meel ay tageen aan la garanayn data entryga oo aan wuxuu soo saaray natiijooyinkii rasmiga ahaa ay sideen muraaqibiintu iyo natiijooyin kale oo aad u khilaafsan isdhaaf fara badan murashaxiintii oo la isdhaafiyey sanaaduuqdoodii magacadoodii la isdhaafiyey annaga oo ilaalinayna xeerarka qaranka ilaalinayna xeerarka komishanka cidna eedaynayn waxaanu u baahannahay in codadka doorashooyinka ee gobolka Togdheer dib loogu noqdo oo dib loo tiriyo kuma qanacsanin walaalayaal natiijadan shalay lagu dhawaaqay waxaanu jecelnahayna in dib loogu noqdo oo sanaaduuqdii dibna loogu furo si xalaal ah in wax iyagii maaragtayna loogu tiriyo Soomaaliland way guulaysatay waxa u dhacday doorasho aad iyo aad u qurux badan oo si nabadgelyo u dhacday doorashada natiijadeedu inuu madmadow galo waxay wiiqaysaa oo ay xumaynaysaa sidii ay doorashadu inoogu dhacday wanaagsaneyd dabcan guul iyo guul darraba waa loo booleeyey oo talagal ku ahaa laakiin waxaanu haynaa habka tirinta ee codadka commissionku habkay u tiriyeen inaanu ahayn hab daah furan hab lagu qanci karana aanu ahayn waxaanu haynaa cadaymo dacwadaha iyaga keli baan u soo qoraynaa oo dariiqa ay leedahay ayaanu marinaynaa haddii waxaanu leenahay yaan la dhoobay erin ama la fooli erin oo la dedejin oo ayan inaga xumayn process hab aynu muddo badan soo wadnay inaan ku gabagabayn madmadow marka waxaanu leenahay inta cabashadayada laga gungaarayo yaan lagu degdegin in natiijo la iskaga dhawaaqo dabeetana taasi ay ina geliso waxa ugu yaraan ina yeeli kartaa waxa weeyaan iyadoo kalsoonidii lagu qabay doorashadaynu qabsanay ay wiiqanto ay meesha ka baxdo in la eego erarkani halka uu ka dhacay oo tirinta iyo qoladan dhaatada haysaa marsanaaduuqda waa in naloo tiriyaa codadkaygii ama dhaatada dib ha loogu noqdo isugeyntooda ama dee sanaaduuqdii tiradoodii ha ahaato taas ayaanu ka cabanayna intaan maxkamad la gaadhin waxaanu ka codsanaynaa in doorashadaasi quruxdeedu ay ku xidhan tahay in la qanciyo dhammaanba asxaabta qaranka musharaxiinta ka tartamayey ee ka cabanaya inaanay sax ahayn figariska halkaa ka soo baxay maanta anigu waxaa ii muuqataa horta in doorashada maanta dhacday aanay si xalaalo u dhicin waa ii muuqataa waxaana sabab u ah oo aanu ku tusaalaynayaa waxa weeye goobihii aniga kujisusiga ka codaynayeen waa loo diiday dadkuba inay codeeyaan horta waa mid taasi anigii tiimkaygii waa shaqaynoo goob walboo muraaqiba nambarkan ka helay waa haystaayo waa ii qoran yahay anigu waxaan aaminsanahay shakhsiyan in lay boobay haddii boob yimaado sanaadiiqdaa maanta sheekh bashiir yaala la qaado oo lii tirin waayana cawaaqibkeeda waxaa iska leh raggii ka dambeeyey inay boobaan waxaan leeyahay war nabaddaa maanta taalayaa lagu cayaarin kuma qanacsanin siday hadda tahay hala tiriyo qof walba rasuulkiisii hala duldhigo wax badan baa khaldan sanaaduuqday ku khaldan yihiin si kale wax la yidhi marka ha laga da'ayo qof cod aanu lahayn in la iska siiyo mid cod badan lahaana in la yidhaahdo waxa malihid waa cadaalad darro cadaaladda lagu soo dhawaado daafurnaantu waa waxyaalaha waa furaha doorashooyinka dimuqraadiyadda ah inay daafurnaato in qof waliba codkiisa isagoo halkaa ka daawanayo uu arko qof walibana ku qanco waxaanu halkan isugu nimi inaanu dacwad gudbinno dacwad guud oo 3 cusbi ka socota iyo dacwad gaargaar ah
hadday tahay golaha deegaanka iyo hadday tahay golaha baarlamaanka dacwaddaa waxaanu geyn doonaa halkii ay kusaysay dimuqraadiyaddii somalilan. waxaan leeyahay annaga iyo shacabkiina soo doortayba kuma qanacsanin, iyo gobolka iyo degmadu midna natiijadan soo baxday kuma qanacsanin. doorasho qurux badan baa dhacday, laakiin madmadowga ku jira ha laga sare baanu leenahay. ayaan le cabdulaahi jaamac, warbaahinta caalamiga SBC, magaalada Burco.